بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan taxasiyo u dirayaa aniga oo ku hadlayo magaca golaha shacabka gaar ahaan golaha joogtada oo maanta fadhiyo shirkaan hadan u fadhino geeridiina soo gaartay qarax oo ummad lagu halaagay oo musiiba in beledweyne ka dhacday hadda fadhigan loo sheegay aad iyo aad baan ugu xunnahay arxan laawiyaashii diinta baan ka sheegtay oo ummadda Soomaaliyeed hilaag la daba joogay inay masiibadaas meesha hadda ka rideen oo dad badan ku dhamaaday oo loo sheegay wasiir ku jiro gudoomiye ku jiro iyo shacab badan iyo ciidamo inay meesha ku halaagsameen loo sheegay arintaas waan ummadda Soomaaliyeed ugu tacsiyeynayna intii ku dhamatay jannatul firdaws Allah uu bashaariyo waa shahiidin dulmi lagu dilay gacan gardaran dishay dadkii waxaas ka dambeeyay waa dad ma aragtay Ilaahay ka furtay ma aragtay ummadda Soomaaliyeed ciqaabteeda maalin kasta joogay noqdeen marka waxaan leenahay Allah u naxariisto intii dhamatay ummadda Soomaaliyeed sabir jamiil Allah idin siiyo waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in arintaas intii moraalkeeda dhaawacdo arxan inaan dagaalkooda laga daalin intay wax ka joogaan saasay wadayaan intay wax ka joogaan maalin inay ummadda ka naxiyaan in ma aragtay maata laayaan shacab inay laayaan ayagana kama daalayaan anagu marka waxaan rajaynaynaa runtii hariiraan oo aan runtii aad ugu mahadcelinayno si geesalaman wadaniidna leh yani islaamnimo leh u jihaaday markii la dulmiyay eelashooda la gubay maatadooda la laayay kacay oo runtii ummadda Soomaaliyeed maanta ku daynaysay ma u maleeynayo taas inay fahmigooda iyo maaragtay moraalkooda in wax ku gaarayaan dadkaas waa ahlu janna galanka gardarana dishay marka waxaan leenahay walaalayaal hal samro ilaahay xaqiisa loo samro hana la adkaysto imtixaan baan ku jirnaa imtixaankaas waxaan kaga guuleysan karnaa anagoo Ilaahay tala saarano geesanimada iyo kalsoonida dagaalku galan aan sii wadno waxaan maartay ummadda Soomaaliyeed caqabada ku noqdeen meel iska saar baan kaga bixi karnaa waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad sabir jamiila insha Allah dawladda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa dhaawacgaas meesha daadsan in gurmad dhab loo sameeyo intii maartay la badbaadin karo la badbaadiyo Ilaahay baan u barinaynaa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed Allah xaqiibiyo aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa dhamaan dadka akhyaarta fadhida iyo